ninkan oo iska cayilna ayaa dhakhtarku wuxuu isaga maleeyay oo qof dumar ah oo uur leh sidaas ayuuna hawsha ku bilaaba laakiin dhakhtarkii oo yaaban ayaa ugu dambeyn wuxuu ogaaday in waxaan meesha jiifo uu yahay nin ee uusan ahayn dumar arrinta ayaa la baaray baaritaan dheer ayaa lagu sameeyey waxaa la soo ogaaday saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkeena asbuuclaha ee aan uga hadli jirnay dhacdooyinkii markaas ama asbuucaas ugu yaab badnaa ee dunida daafaheeda ka dhacay ma soo wada qaadano dhacdooyin tiro badan ee waxaan soo qaadanaa in yar oo kooban 3 ilaa 4 si aan waqtiga u soo koobno oo barnaamijku uusan noola dheeraan asbuuca waxaan soo qaadan doonaa dhacdo yaab iyo ama kaag leh oo ka dhacday waddanka Ruushka waxaa jiray lamaane u dhashay waddanka Ruushka oo isqabay muddo lamaanahan ayaa waxay ahaayeen madhaleys waliba dhanka gabadha ayaa waxa ahayd ma aysan dhali jirin ninkan ayaa gabadhiisa waxa weydiiyay marar badan sidee ayay wuxuu jiraan sidee ayay wax naga yihiin laakiin gabadhan ayaa waxay samaysay arrin yaab iyo ama kaag leh gabadhan ayaa ninkeeda maalin waxa u sheegtay in ay uur leedahay oo waliba ay caloosha ku sido mataano ninkii ayaa arrinta aad ugu farxay maadaama uu ahaa nin aan waxba dhalin wuxuuna aad u doonayay inuu noqdo aabe oo arrintaas qalbiga ayuu ku qaboojisay oo aad ayuu farxay gabadhan ayaa waxa ay sheegtoba in ay uur leedahay oo ay mataano caloosha ku sido oo qoyska gabadha iyo wiilkaba ay aad ugu farxaan arrintan ayaa waxa dhamaatay muddadii 9 bilood ahayd gabadhan ayaa markii waxa la geeyay isbitaal si ay halkaas ugu foolato gabadhan ayaa saacado kadib foosheedii waxay la xiriirtay ninkeedii waxayna u sheegtay in ay dhashay mataano laakiin nasiib darro mataanihii ay ka saqiireen oo ay dhinteen isagana looga baahan yahay inuu hawsha duugitaanka carruurtan yarka ay ka saqiirtay uu ka qayb qaato ninkan oo aan hore carruur u dhalin oo doonaya inuu markaas aabba noqdo ayaa arrintan aad uga naxay oo aad uga niyad jabay laakiin uu iska samray wuxuuna la wareegay mas'uuliyaddii inuu carruurtiisa wax ka aaso laakiin ninkan ayaa intuusan aasin carruurtii saqiirtay wuxuu damcay bal in markii ugu dambeysay uu fiiriyo carruurtiisa kafanti ayuu ka qaaday carruurtiisii la yidhi waa saqiireen laakiin arrin yaab iyo ama kaagle ayuu meesha kala kulma kafanti markuu ka qaaday carruurtii yarka ahayd wuxuu meesha ugu tegey wax aan bini aadan ahayn iska daa carruur saqiiray kafanti waxa uu ka qaaday oo waxa kafanta ku duudubnaa waxay ahaayeen 2 boombale ninkan ayaa markuu arrintaa la kulmay marna naxay marna farxay ninkan ayaa marka naxay waxaan kafanta ku duuduban oo meesha ugu tegay marna waa uu farxay oo waxa uu siiri isbitaalka ayaa khalad ka dhacay oo waxaani carruurtaadi ma ahan carruurtaadi waa ay nool yihiin bal isbitaalka ku noqo ninkan booliiska ayuu la xiriiray booliiska markii uu la xiriiray arrintii ayaa la galay baaritaan ayaa la sameeyay booliiskii waxa uu kaashaday dhakhaatiirta arrintii ayaguna baaritaan aad u sii xeel dheer ayay ku sameeyeen ugu dambeynna waxay soo ogaadeen gabadhan in ay carruur dhashay iska badaaye inaysan xitaa weligeed uurba yeelan gabadhii ayaa loo yimid oo warays lagu bilaabayo sidee wuxuu jiraan oo maxaa samaysay ayaa lidhi gabadhan ayaa waxay sheegtay in ay ninkeeda maalinka u sheegtay in ay uur leedahay oo weliba ay mataano caloosha ku sido ay xaruntii caafimaadka ay booqatay ay sidaa usoo sheegeen laakiin mar dambe ay la soo xiriireen oo ay ku yiraahdeen khalad ayaa dhacay adiga ma ahayn cidda uurka leh gabadhan ayaa marka waxa ay tiri ma aan doonin inaan ninkeyga niyad jabiyo maadaama aan ka farxiyey waxaana sameeyey bay tiri in aan jilay yacni muddo 9 bilo ah in aan uur leeyahay kadibna markii aan dhalo kadib inaan ninkeyga u sheego in carruurtii aan dhalay ay saqiireen halkaasna lagu aaso hawshan halkan kusoo gabagaboodo dabcan su'aalo badan ayaa isweydiinayaa oo lamaane wada jooga yacni sidee gabadha uurkeeda u qarin kartaa laakiin kolliba arrintan waxay ahayd arrin ay si weyn warbaahinta u qoraysay oo yaabkeeda leh yacni muddo 9 bilood ayay waxay jilaysay inay uur leedahay dabadeedna uurkii waxa uu noqday boombalayaal waxay rabtay dabcan in hawsha halkaa kusoo koobnaato ninkan aysan niyadiisa wax dhibaato ah soo gaarin oo uusan niyad jabin iyaduna ay sheegto in carruurtii ay dhashay ee halkaa ku saqiireen dhacdada kale aan soo qaadan doona ayaa iyaduna waxay tahay dhacdo yaabkeeda iyo ama kaageeda leh maxkamad ku taalla magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Chinaha ayaa asbuucan nin xaaskiisa furay waxay ku xukuntay inuu xaaskiisa siiyo lacag dhan $8,000 sababta uu siinayo ayaase waxay tahay arrin yaabkeeda leh sida ay u dhaceen lamaane u dhashay waddanka Chinaha ayaa waxay isbarteen sanadkii 2015 laakiin nasiib darro waxa ay kala tageen sanadkii 2020 ninkii ayaa maxkamadda waxa uu geeyay dacwad uu ku sheegayo inuu doonayo xaaskiisa inuu iska furo laakiin gabadhan ayaa waxay ku tiri u kaadi reerka naga burburin qoyska naga burburin maadaama aan nahay qoys ilma leh markaas waxay haysteen lamaanahan wiil laakiin ninkan ayaa wuxuu ku adkaystay inuu doonayo inuu gabadhan furo oo uusan la sii joogin gabadhan ayaa markii ay aragtay ninkan inuu doonayo inuu reerka iyo qoyska uu ka burburiyo waxa ay samaysay iyaduna arrin yaab leh maxkamaddii ayay tagtay iyaduna waxayna codsatay
in ninkan looga qaado magdhow. maxkamaddii markii ay weydiisay waa maxay magdhowga aad ninka ka rabtidna waxay tiri muddadii 5 sano ahayd ee 2015 iyo 2020 u dhaxaysay ee aan isqabnay hawsha guriga laga qabto oo dhan aniga ayaa qaban jiray oo wax kasta oo guriga laga qabanayo keligay ayaa qaban jiray oo dhabarka u ridan jiray isaguna ima uusan caawin jirin ee intuu yimaado ayuu bixi jiray. sidoo kale waxay tiri halka cunug ee aan isku dhalnay korintiisa aniga ayaa dhabarka u ridan jiray oo asagu ima caawin jirin oo ima saacidi jirin. maxkamaddii ayaa arrinta baartay waxaana soo ogaaday gabadhan waxa ay sheegayso in ay run yihiin. ninkaana waxaa lagu xukumay inuu gabadhan farta ka saaro lacag dhan $8,000 oo uusan wax hadal ka keeni karin. waddanka Shiinaha ayaa waa dhaweeyay waxa laga ansixiyay sharci dhigaya in lamaanuhu markii ay kala tegayaan ay gabadhu xaq u leedahay intii ay maxkamadda tagto ninkan in ay weydiisato magdhow, sida haddii ay iyadu inta badan guriga ka shaqayn jirtay oo kale ama iyadu inta badan carruurta korintooda ay lahayd oo ninkan uusan saacidi jirin oo uusan garab siin jirin. sidoo kale gabadhu ninkan magdhow ayay weydiisan kartaa markii ay kala tegayaan haddii xaafadda ay joogeen dad yacni da' oo sida ninkan hooyadiis ama qaraabadiis oo kale oo iyadu inta badan ay u adeegi jirtay. waa sharci yaabkiisa leh, dabcan dowlado badanna waa ka jira. yacni lamaanaha inta ay isqabaan gabadhu haddii ay guriga in badan iyadu ka shaqayso ama carruurta korintooda oo dhan ay dhabarka u ridato ama dad yacni ninka dhankiisa ka socda oo dad da'a ama ninka qaraabadiisa ama hooyadiis ama aabihiis wax saas oo kale ay guriga joogaan oo iyadu ay u adeegto markii hadhow la kala tago waxyaalahaasoo dhan waa ay soo dallacanaysaa. markaana waa dhacdo kale oo yaab iyo qosol leh oo waddanka Maraykanka ka dhacday isbuucan aan ku jirno. nin u dhashay waddanka Maraykanka gaar ahaan ku noolaa stateka Kentucky ayaa subax wuxuu isku arkay wadnaha oo aad looga hayo. dabadeedna wuxuu go'aansaday inuu tago mid ka mid ah xarumaha caafimaadka. markii uu tagay isbitaalkii ayaa ninkan aad ayaa loo soo dhaweeyay, baaritaan ayaa lagu sameeyey waxaana loo sheegay in uu doonayo in wadnaha laga qalo oo wadnihiisa u baahan yahay in la qalo. ninkan ayaa dhammaan waraaqihii iyo waxyaalihii kale ee laga rabay ee xiriirka la lahaa in wadnaha laga qalo saxiixay. laakiin arrinta yaab kale waxa weeye qolyihii isbitaalka ayaa ninkan halkii la rabay in ay geeyaan qaybta lagu qalo wadnaha waxa ay geeyeen qaybta dumarku ay ku dhalaan. ninkan ayaa markii meesha la geeyey meesha iska jiifsaday isagoo sugaya inay u yimaadaan dhakhaatiirtii wadnaha ka qali lahayd. ugu dambayn ninkan waxa usoo galay mid ka mid a dhakhaatiirta dumarka ka umuliya oo rabay in uu ka dhaliyo ama ka umuliyo qofkan dumarka ah ee meesha jiifa. ninkan bukaanka ayaa sidiisa wuxuu iska ahaa nin cayilan. dabcan dhakhtarkii waxa u maleeyey waxaan meesha duduban ee meesha jiifa inuu yahay qof dumar ah. ninkan isna dhankiisa wuxuu qabaa dhakhtarkan usoo galay inuu yahay mid ka mid a dhakhaatiirtii geli lahaa hawshiisa qalliinka wadnaha ah. dhakhtarkii ayaa wuxuu damcay inuu hawshiisa gudagalo oo uu hawshiisa bilowdo si uu gabadhan ama qofkan dumarka ee meesha jiifa uu uga dhaliyo. laakiin arrinta yaabka iyo makaanka dhakhtarka ku noqotay waxa weeye in qofkan meesha jiifa uusan uurba lahayn, iska badaa inuu uur leeyahay xitaa in uusan lahayn xubnihii taranka dumarka. ninkan oo iska cayilnaa ayaa dhakhtarku wuxuu isaga maleeyey oo qof dumar ah oo uur leh, sidaas ayuuna hawsha ku bilaaba. laakiin dhakhtarkii oo yaaban ayaa ugu dambayn wuxuu ogaaday in waxaan meesha jiifa uu yahay nin ee uusan ahayn dumar. arrinta ayaa la baaray, baaritaan dheer ayaa lagu sameeyey. waxaa la soo ogaaday in qoliyaha isbitaalku ay khaladkan sameeyeen oo ninkan iyagu ay meesha usoo direen halkii la rabay inay u diraan qaybta wadnaha lagu qalo ay usoo direen oo ay soo seexiyeen meeshaan dumarka lagu dhaliyo. ninkan ayaa arrintii markii ogaaday isaguna intuu aad u xanaaqay waxa uu tegay maxkamad, waxa uuna qolyihii isbitaalka ku soo oogay dacwad, wuxuuna maxkamadda u sheegay in qolyahan looga xukumo oo magdhow ahaan uu uga rabo ilaa lacag ka badan $1 milyan. arrintan qosol kale ayaa asbuuca waxay ka mid ahayd waxyaalihii sida aadka ay u qoriyeen qaybo ka mid ah warbaahintu. sidoo kale waxyaalaha qosolka sile iyaduna waxa weeye ninkan wuxuu sameeyey magdhow ayaan rabaa ayuu yiri gaaraya ilaa iyo $1 milyan maadaama dadkaani ay uga cayaareen oo ay si xun ila dhaqmeen. saaxiibayaal, barnaamijkeenii asbuuclaha ahaa ee aan uga hadli jirnay dhacdooyinka asbuucaas ugu yaabka badnaa ee dunida daafeeda ka dhacay intaas ayaan kusoo koobayaa. idinkana waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirta idinkaga codsanayaa in kanaalka haddii aad horey ugu taxanaydeen aad like saartaan, muuqaalkan aad sii shargaraysaan. haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe saartaan. waa mahadsan tihiin. waa noo asbuuca dambe iyo nooli kulantee guulaysta.